iyadoo maanta ay ku beegan tahay taariikh 15 bishii shanaad 2019 ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka soo cagadhigatay abwaanada da'da yar Ilhaan Cabdiqaadir Jaamac iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugan magaalada Muqdisho ay soo dhaweyn diiran u sameeyeen abwaanada da'da yar Ilhaan ayaa marar badan ku taami jirtay in mar ay tagi doonto caasimadda ummadda Soomaaliyeed ayna la kulmi doonto madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre Ilhaan ayaa sidoo kale ku caanbaxday baraha bulshada in ay u mariso erayooyin dhiirigelin iyo wadaninimo maadaama tan iyo burburkii dawlad salka isku taagto aysan lahayn wadankeena Ilhaan ayaa wixii ka soo kintay xiriyaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya Ilhaan soo dhaweynteeda waxa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo madax kale oo kala duwan sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ururada hooyooyinka dhalinyarta haweenka sidoo kale way ka qayb galeen sidoo kale Ilhaan ayaa staff qaas loo siiyay inta ay ku sugan tahay Muqdisho in ay soo kala aragto magaalada Muqdisho qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay sida xeebta Lido xeebta Jazeero beerta Xuriyadda iyo meelo muhiim ah Ilhaan ayaa runtii bogaadin iyo farxad darteed la ooysay markii ay ka soo cagadhigtay digadaha diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho guleed magaalada Muqdisho